Mas'uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda Adna Aadan qaybteeda caafimaadka ayaa maanta adeegyo caafimaad ka fuliyay iskuulka xaafadda Sancaani ee magaalada Hargeysa. Ujeedada barnaamijkan caafimaadka ee dugsiyada ayaa waxaa loogu talagalay horumarinta caafimaadka ardayda dugsiyada hoose dhexe ee Somaliland. Barnaamijkan ayaa waxaa bilowday Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyadoo iskuulo badan la gaarsiiyay barnaamijkan oo bilaabmay 2018 ilaa sanadkan 2024. barnaamijkan ay waxa kaalin muhiim ah ka qaatay jaamacadda iyo isbitaalka Adna Aadan oo kaashanaya hay'adda Sofa. barnaamijkan ayaa ah mid loogu talagalay adeegyada daryeelka caafimaad ee dugsiyada dhexe hoose ee Hargeysa iyo Somaliland oo dhan, kaasi oo kor u qaadaya caafimaadka ardayda iskuulada dhigata. Ugu horreynna mas'uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda Adna Aadan oo hogaaminayso Adna Aadan Ismaaciil ayaa ka hadlay adeegyadan caafimaad ay ka fuliyeen iskuulkan iyo iskuuladii horeba, waxaana ka mid ah hadaladoodii. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joogaa xaafadda Sancaani Hargeysa dugsiga Sultan Maxamed loo bixiyay ayax foor ayax waa waxaynan aynu ka duceysanayno weeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay in tiimkii dhaqaatiirta Adna Aadan Hospital iyo hay'adda aanu walaalaha nahay aan wada shaqeyno Somaliland Family Health Association Sofa inaanu mar kale aanu dugsigan aanu nimaysan caruurta loo baaro caafimaadkooda loo eego wixii la arko caafimaadkooda ama xagga indhaha ama dhagaha xanuunaya dhuunta wixii lagu arko si wax looga qabto caruurteenu waa qaali caruurteenu waxa weeyaan mustaqbalkii dalkeena weeyaan marka iskuulo badan oo magaalada ku yaala ayaanu tagnay waxa sharaf noo ah inaanu maanta haleelay dugsigan ku yaala meeshan maxaan ku dhahaa barakaciyaasha ee magaalada ka soo fog caruurta u baahata inay muraayada gashtaan sida aniga oo kale akhriska ugu baahan annaga u samayn doona insha Allah caruurta nafaqa darrada ah talooyin iyo xoogay raashin baa laga siin xiriirkuna halkaas ayuu ka sii socon doona marka iskuulada waaweyn ee magaalada waan intooda isbitaalka u dhow waan dhamaynay maxaan ku dhahay Daawud waan samaynay Fado Bixi adigu 8-9 dugsiyo waaweyn oo kuwa dawladda ah ayuu maanu tagnaaye waanu samaynay iyo caruuraha agoonta iskuuladooda waxa noo dheer oo isagana aanu soo eegnaa waxa qabanaa dugsiga caruurta baahida gaarka ah leh marka farxad bay noo tahay inaan maanta iskuulkan haleelay shaqadii maanta ma la bilaabay caruurta oo dhan baa la eegi doonaa caafimaadkooda la eegi doonaa wixii ay u baahdaan halkaas ay ka soo bixi doonaan insha Allah waan idin duceynayaa caruurta wax barta macallimiinta aad baad u mahadsantihiin maamulaha iyo gudoomiyaha iyo tiimkiisa aad bay noo soo dhaweeyeen aad baan idin salaamayaa hooyo wassalaamu calaykum